dufcadani maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa oo iyadoo dufcadii saddexaad ay ka qalin jabisay jaamacadda ayaa waxa munaasabada qalin jabinta ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda. xafladan waa mid siyaasadeed la soo agaasimay waxa halkaas ka qalin jabiyay 249 arday oo iyagu 3 sano ugu dambeysay soo baranayay kulliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa. waxaan halkaas hadallo kala duwan ka jeediyay madaxda ka soo qayb gashay ugu horeyn gudoomiyaha jaamacadda Cabdiraxmaan Maxamed Maal ayaa ka warramay dufcaddan saddexaad iyo taariikhda kala duwan ee jaamacaddu soo martay waxaana ka mid ah hadalladiisii geesta kale waxa uu halkaas ka hadlay wasiirada waxbarashada arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxdii ka soo qayb gashay oo uu hambaliyay ardaydani dufcadii saddexaad ay ka qalin jabisay jaamacadda Alfa University College ee magaalada Hargeysa. waxaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaan halkaas uga jeediyay ardayda hadalka mahadnaqa iyo bogaadinta waxaana ka mid ah hadallada madaxweynaha Soomaaliland ومفتاح عمرية الأرض الدولة يتطور وأنا وحى أطلب غروب بران حتى نقرأ سؤال الهام وعن كفاننا وكفانا ويكسرنا إن شاء الله خير كبرنا إلى نقطان ومستقبل الدولة يكون يوغامية الدولة أحسن يوغامر وهرقع نقطان dhinaca kale waxa uu sid maneelkaasi lagu shaqaaleysay laba qof oo naafa oo kamid ah 249 arday maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa. gabagabadii munaasabadaasi waxa halkaas madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan oo ardayda shahaadooyinkii kala duwan ku gudoonsiyay iyo sidoo kale ardaydii kaalmaha hore ka gashay jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa. qalin jabintooda lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa iyadoo dufcadii saddexaad ay ka qalin jabisay jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa iyadoo ay tiradoodu dhannayd 249 arday. Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.